Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada warkii Simana Media News xilligan oo kale aad daawan jirteen qodobada aan kugu hayno aad ku daawan doontaan haddii Allah awood la ogolaadana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay 2 sano kadib qaraxii xoogganaa ee ay ku dhamaadeen dad Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo ka dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab xilli dalka laga xusayo maalinta 14 Oktoobar isagoona ku dhawaaqay howlgalkaasi in laga sameyn doono qaybo badan oo ka tirsan deegaanada maamulka Jubbaland ciidamada booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa toogtay nin markaasi huwaysnaa isla markaana isku dayay inuu gudaha u galo saldhig ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare oo ka hadlay dilkii ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe oo loo geystay gudoomiye ku-xigeenka amniga ah maamulka gobolka Shabeellada Dhexe qaramada midoobay ayaa ka hadashay 14 Oktoobar 2 sano kadib weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana ay sheegeen in beesha caalamku ay garab taagan tahay dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartay burburkii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 2 sano ka hor maamulka Puntland ayaa faahfaahiyay kiiska loo haysto siyaasiga Cali Muuse oo ku xiran magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland qodobada wararka dibadda ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa ka mid ah Qays Saciid oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Tunisia iyo dhexdhexaadin xilligan laga dhex bilaabay Sacuudiga iyo Iiraan daawadayaal intaasi waa qodobada warka oo kooban ha yeeshee ku soo dhawaada markan warkii oo dhameystiran oo idin si anba qaado ano ah Maxamed Cabdullaahi CD isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho munaasabad lagu barardiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay 2 sano kadib qaraxii khasaaraha badan geystay isugu jiray dhimashada iyo dhaawac oo ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa dhacay xilli markaasi salaada casir laga soo baxay isla markaana isgoyska Soobe uu yahay mid aad u mashquul badan waxaana saxmadda xilligaasi ka jirtay isgoyska dadka qaarkood isku dayayeen inay ka degaan baabuurta si ay uga tallaabaan wadada iyagoo markaasi aad u badnay saxmadda hayeeshee musiibadaasi ka dhacday isgoyska Soobe ayaa waxaa geystay gaari markaasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo markaasi ahaa dadka baabuurta nooca u yaqaanaan teemka tan iyo waqtigaasi dawladdu waxa ay xoojisay howlgallada qorsheysan ee markaasi looga hortagayo dadka dhibaatada ka geysta magaalada Muqdisho ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya ee ugu horeeyaan Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe halkaas oo madaxweynuhu sheegay inay Al-Shabaab ay ka soo abaabuleen weerarada xoogga leh ee ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la uga bariyay dadkii dhintay in Allah u naxariisto halka kuwii dhaawacayna uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay garab istaagayso isla markaana wixii haatan nool dawladdu il gaar ku hayso 14 Oktoobar ayay ahayd maalin aad u madow isla markaana dad Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 900 oo qof ay waxyeello ka soo gaartay waxaana markaasi la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku didaaleysay wixii intaasi ka dambeeyay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa qaybo ka mid ah dhulka xilligan ka taliyaan iyadoona ilaa hadda dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah ugu suura gelin inta badan inay ka saarto Al-Shabaab goobaha ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya markan gobolka Shabeellada Dhexe war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdiwaare oo ka hadlaya afka golayaasha iyo sidoo kale kan shacbiga Hirshabelle waxa uu tacsi u dirayaa geeridii ku timid Allah u naxariistay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe marxuum Maxamed Sagaal Cismaan iyo sidoo kale wiil u dhalay oo xalay ku geeriyooday bam lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada Jowhar xaafadu ka degnaa gudoomiyaha
madaxweynaha ayaa u tacsiiyey eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaana uu sheegay in ciidamada amniga maamul goboleedka Hirshabelle ay ku dadaali doonaan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyay dilka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo wiilkiisa. madaxweyne Waare ayaa tilmaamay in marxuumka uu ahaa xubin muhiim ah oo markaasi ka baxday maamulka Hirshabelle iyo shacabkoodaba, isla markaana waxa uu sheegay inuu hayay shaqo adag oo muhiim ah, isla markaana dowlad goboleedka Hirshabelle ay ku dadaali doonto sidii dadkii uu ka baxay ay u xanaaneyn lahayd. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa faray hay'adaha amniga in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo jawaabaan baaritaanada dhanka amniga ee ka socda gudaha magaalada Jowhar, isla markaana ay soo bandhigaan sababta keentay in bom gacmeed lagu tuuro xaafad ka mid ah magaalada Jowhar. ugu dambeyntii Maxamed Cabdi Waare ayaa si hadalkiisa intaasi waxa uu ku daray in guud ahaan shacbiga Hirshabelle uu ka dalbanayo inay dardar geliyaan amniga, isla markaana ay la shaqeeyaan laamaha amniga maamulka Hirshabelle. deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa waxa ku soo badanaya dilalka isugu jira qaraxyada iyo sidoo kale dilalka toosa, iyadoona madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare hore u sheegay in al-shabaab intooda badan ku soo jabeen gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii laga soo saaray qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha Jubbaland ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah al-shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in xusuusta dadka Soomaaliyeed ay weli ku taagan tahay qaraxii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaana ka Jubbaland ahaan ay la qaybsanayeen dadka murugada soo gaartay. madaxweynaha waxa uu sheegay in ay tahay mid aad looga naxo in qaraxaasi uu ahaa musiibo, isla markaana aysan ummadda Soomaaliyeed u kala harayn in ay ka xun yihiin dhibaatadaasi. baroor diiq ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland, waxaana markaasi loogu tacsiiyey dadkii dhibaatadii ka soo gaartay 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. madaxweynuhu waxa uu tacsi u diray dhammaan dadkii iyo ehelkii ku waayay dhacdadaasi maanta oo kale 14 Oktoobar isgoyska Soobe, waxaana uu Allah uga bariyay in uu jannatul firdaws geeyo dadkii ku waxyeeloobay oo isugu jiray ciidamo, shacab iyo sidoo kale qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka. Puntland ayaa faahfaahin ka bixisay kiiska loo haysto siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo maalmo ka hor ciidanka nabadgelyada Puntland ay ku xireen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. xeer ilaalinta guud ee gobolka Bari Puntland ayaa faahfaahin guud waxa ay ka bixisay kiiska dacwadeed ah ee loo haysto siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo dhawaan ay xireen ciidamada amniga maamul goboleedka Puntland. xeeralyaha guud ee gobolka Bari ayaa sheegay in siyaasigu uu si cad ugu gafay garsoorka Puntland, isla markaana uu sheegay inay yihiin kuwa markaasi laaluush qaatayaal. waxa uu sheegay in isaga oo laftiisa in asaga laftirkiisa uu maxkamadda ka hor qirtay kiiska lagu eedeeyay, isla markaana sharci darro uu yahay. sidoo kale xeeralyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa sidoo kale sheegay in intaasi kadib maamulka Puntland uu amray in saldhigga uu ku sii jiro Muuse. siyaasiga Muuse Cali Jaamac ayaa maalmo ka hor waxa ka qabtay ciidamada nabadgelyada magaalada Boosaaso gudaha magaalada, iyagoona u dhaadhiciyay xabsiga magaalada Boosaaso. wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxa ay sheegayaan in ciidamo ku sugan saldhigga booliska degmadaasi ay xalay toogteen nin hubeysan oo isku dayay inuu gudaha u galo saldhigga degmadaasi. toogashada ninka hubeysan ayaa timid kadib markii uu isku dayay inuu galo saldhigga, ha yeeshee ciidamada amnigu ay ka dalbadeen inuu ka joogo kadibna ay toogteen. toogashada ninka hubeysan ka hor ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay israsaasayeen rasaas daqiiqado socotay ee dhex martay isaga iyo ciidamada booliska, isla markaana kadib goobta ay ku toogteen. ilaahay hadda lama oga waxa uu ahaa shakhsiga hubeysan ee isku dayay inuu galo saldhigga Dhuusamareeb ayna toogteen ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug. xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxay tahay mid caadi ah, waxaana socodka dadka yihiin kuwa xalay istaagay, ha yeeshee dib loo furay. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa gordhow waxa magaaladaasi ay ka bilaabeen banaanbaxyo ka dhan ah ciidamada booliska Hirshabelle ee ka howlgala magaalada Jowhar. banaanbaxa ayaa looga soo horjeedaa howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska, isla markaana ay sheegeen in ay ku xadgudbeen dadka, iyagoona soo xirxiray dad gaaraya 100 qof oo lagu shaqo. dhalinyarada ayaa loo soo qabqabtay qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe Maxamuud Dugaal iyo sidoo kale wiilkiisa bamkaas oo xalay lagu weeraray magaalada Jowhar. dadka ay ka xiran yihiin
eheladooda ayaa muujiyey shucuur iyagoona sheegay inaysan raalli ka ahayn xilligan howlgallada ka socda magaalada jowhar waxaana ay sheegeen in ay xadgudub ku tahay iyadoo amnigii faraha kasii baxayo in haddana dadkii laga qabto. halka wararkaasi aad ka daawanaysaan daawadayaal waa Simada Media News. markana akhbaraadka caalamka. aqoon-yahanka diinta ku adag ee Qays Siciid oo siyaasadda ku cusub ayaa guulo hordhaca waxa uu ka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi Tunisia isagoona ka guuleystay maalqabeenka warbaahinta Nabil Qurays sida uu muujinayo natiijo hordhaca oo soo saareen guddiga. Siciid oo si madax bannaan u tartamayay ayaa helay ugu yaraan 72 iyo bar codadka sida ay muujinayaan natiijada hordhaca ah ee sii daysay shabakadda Imran oo markaasi waxaana hordhacaasi uu muujinayaa in isagu ku horeeyo. kumanaan qof oo isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Tunisia ayaa ugu dabaaldegaya guusha Siciid iyaga oo u haysta in xilligan uu yahay nin astaan qaran leh. waa maalin taariikhi ah Tunisia waa markaasi ay tahay in haddii uu guuleysto Siciid uu tahay dadka shacabka ah oo guuleystay ayay ku baaqayaan dadka isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi Tunisia. natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo isla maanta. Siciid ayaa ugu mahad celiyay daayarta dadka iyo sidoo kale shacabka intooda kala gedisan ee isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi Tunisia. qiyaastii 90 dadka da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa 25 ayaa u codeeyay Siciid sida ay muujinayso raay aruurinta markaasi ay sameysay tiradda Michel Sen. dhexdhexaadin ayaa laga bilaabay dowladaha Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale Iran. dowladahaasi oo u dhaxeeyay khilaaf waqti soo jiitamayay. Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa booqday dalka ay dariska yihiin ee Iran. Ra'iisul Wasaare Khan ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu dhexdhexaadiin ka noqdo markaasi dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Iran. xilli ay shir jira ay si wadajir ah u qabteen magaalada Tehran madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan ayay sheegeen in ay markaasi soo dhaweynayaan dhexdhexaadintaasi. Mr. Khan ayaa isku dayay in uu dejiyo xiisadda gacanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay si laba kacaysay. saraakiisha dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in ay la kulmi doonaan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Hassan Rouhani. Mr. Khan ayaa sheegay in bishii aanu soo dhaafnay uu Mareykanka ugu ka codsaday inuu dhexdhexaadin sameeyo isla markaana la soo keenado dowladaha Iran iyo Sacuudiga. waxa ay sidoo kale Mr. Khan lagu wadaa in uu booqdo toddobaadkan soo socda dalka Sacuudi Carabiya. daawadayaal waa naga intaas war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray cid u dhaafana dib ha uga fiiriso barta internetka ku leenahay ee simanamedianews.com. waad ku mahadsantihiin la socodkii daawashada wararkeena iyo warbixinadeena. qaybaha kale waxaan xasuusinaa in channelkan aad saartaan subscribe si ay ku soo garaan wararkii ugu dambeeyay xaaladaha gobolka iyo kan caalamka intaba.